xilli muddooyinkan dambe garoonka diyaaradaha ee Aadan ay ka soo degayeen dad badan oo laga soo tarxilay qaar ka mid ah wadamada caalamka ayaa maanta hay'adda qaxoontiga qaranka Soomaaliya waxa ay garoonka diyaaradaha Aadan ka bilowday mashruuc teendooyin loogu dhisayo dadka Soomaaliyeed ee laga soo tarxilo dalka Sacuudiga waxaana loogu talagalay inay ku soo degaan kuna nastaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee laga soo tarxilo dalka Sacuudiga qaar ka mid ah dadkan laga soo tarxilay dalkaasi Sacuudiga oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in ay la kulmeen dhibaatooyin fara badan oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha kuwaas oo loo geystay intii ay ku jireen xabsiyada dalkaasi Sacuudiga iyagoona dhanka kala sheegay in ay ku faraxsan yihiin dib ugu soo laabashada dalkooda hooyo wallahi dhibaatadii igu badnayd waxay ahayd ilmahayga oo yar oo 5 isma dhaanta anoo wato oo shiwani matagna uu iga dhacay oo 2 bilood ku dhawaad aan xiranahay cunugii markaa istaal ay xawli afarti kala cid watagana ee lahayd oo ligu dhahay يا ماما إلى شوفي مصلحتي أولادي ويلكاد إنه نلا يجري ودحياة استال لا أسو هذا لا أسن كان كان بريسك عنا إن أكل حتى كوفي عن كان مسؤوليتي صداقة هذا محمد بلا جيل صمصات مقدشو.